ciyaarta ku dhamaatay kaambiyada koowaad 2-2 barbardhac aad iyo aad barbardhac ku dhamaatay yani waxay ahayd markuu ii sheekeeyey Odotuke oo ciyaarta sida ragga ciyaar ka mid ahaa waxyaabaha maaragtay runtii cajaa'ib kale yani waxay ahayd khibrad yani aad iyo aad la yaab leh taasuna waxay ahayd marxaladdii kadib marxaladdii kale waxaa iyaduna muhiimka ahayd labaad waxa weeye markii ay dalka soo galeen ciyaartooydii Ethiopia ka timid iyo ciyaartooydii cadan nimankaas way marka marxaladdii labaad yani kor u qaaday oo jawigii bedelay mar sidii kara bedelay oo naadiyadii ka yani xadaarad ku soo kordhiyay Ismaaciil Garile Ibrahim Wabari iyo Maxamed Jibril Juro oo Suudaan 1965 ciyaar loogu diray ayaa markii ciyaartii ay ciyaareen ayaa waxay u tageen safaaradda Soomaaliyeed markaas Muqdisho ay meeshii ay ku noqon lahayn Ethiopia teamka la cemetery ka tirsanayeen Garile markaa waxa loo jiray number del South Africa loo jiray waa one of the best players Garile laacib weyn buu ahaa على كل دلكي هو سيف عن لوكس الوعي يتوبي كمان نقول لما كاس مركز وحوين بكبدلين مركز يمدن كدبنا واحد كحية أو يمد أو أن سند سجال بلود مالها كدن بيه أن يردي وريرك هيد كيتم عادن أفريقيا ستارز تيم كيلو رنجلي مرتي عجائب لها يعني تردنا كبدها ركفر بضم تيم كاس يتكلم واحد مقاشين معياد ودي إن وحكم ده أفريقيا يعني تيم كده بوي أفريقيا ستارز كيو هوريك كل وحول دقها جاي وكله لكن اللي يردي دنبي سعيد وعلي سعيد اسماعيل حسين اسماعيل احمد سوفي سعيد سنقر جلال سعيد وعلي هلكي كي مدينة مركز عدن كي مدين ومركا ان افريكان ستارز اي ان هاين كدب مركز waxa ku beeran xulka in kooxihii marka seer aad aha kooxaha adag ay isu bedeleen marka kooxaha adag ay isu bedeleen military basically waxa kooxdii booliisiga iyo militariga labadaas ayay maartay in ku kala biireen marka nimankaas ay waxa la oran karaa marxalad yani door weyn ayay ka qaad mesela haddaan dib ugu noqdo African Stars oo cadan waxa jaaliyad Soomaaliyeed xoog weyn oo afka iyo dhaqankana ku adag ciyaarahana iyo fankana maartay yani fanaaniinta ugu culus baa ka soo baxay xadra cadan buu ahaa Fairuz cadan buu ahaa gabadhii maxay ahayd qabarka jaak jirtay maalintan ku raysan jirtay Zainab magaceedu waa la salahay Zainab tigad waxay kamid ahayd yani raacad mid kamid marka ciyaartooy fara badan ayaa ka yimid cadan jaaliyadaas ito waxa kamid ahaa in ciyaartooyda yani naadiye ahaayeen oo سعيد وعلى كمدها حسين وعلى كمدها علي حسن سعيد اسماعيل موليج حرير انور ابكو سعيد عدب عبد العزيز كيلر دودب هذا الجزيرة خلفاني عبد الله جامع أحمد عمر الشعب وحاول يعير جري فارح مجنونة عبد الله علي حسن حاج علي يعني رجعنا ولن هذا كل شيء جاي مركي يمدن كوحدة بوليسية كوحدة ملترية أيوة كلا بيرن يعني مركي واحد بدل كرو قادين مرحلة دي صدحات مرحلة دي صوب مرحلة دي حال وركرة وهنا قاعدين كبد عكس مالية مرحلة دي صدحات نوع عياري قبل هذا markii la bilaabay 70kii meelahaas ay ahayd yani taqriiban goboladana yani waxa la oran karaa hooyadii kubadda cagta Soomaaliyeed waa gobolka Jubbada Hoose ahayn 8 goor ayay ku guuleysatay koobihii banaadir 4 jeer shabeellada dhexe waxaan malanayaa bukatu yani yar ku qoran yahay 2 shabeellada dhexe 2 shabeellada hoose marka ilaa 3 shabeellada hoose halkii ku qoran horyaaladii saasi ahayd marka waqooyi galbeedna ilaa 2 goor saajaclaa mar marka saasi isdaba socdeen kadibna waxa soo baxay ragii kale ee wada faraha badnaa ee naadiyadii faraha badnaa ee abuurmay ee seeriyaada ka soo baxay halka marka bog waxaan ku qornay intii soo martay seeriyaada intii ma garanaysaa naadiyadii ahaayeen xulka qaranka ciyaarihii la ciyaaray dibadda lagu ciyaaray marka taas anigu 63kii ayaana arkay inay ahayd yani tii ma garanaysaa ugu muhiimsanayd waxa kale oo iyadana jirtay yani ciyaar kale oo yani aan xuso hargeysa waxa ka timid koox la oran jiray Hilaac waliga maqshay 1960kii ayay timid magaalada Muqdisho koobka xorriyadda 1960 ayaa loo soo diray marka ciyaar fiican bay xil ciyaareen Jeeyo nin la oran jiray Rabbul Qurra oo kamid ah African Stars ka sheegay cadan Maxamed Axmed Zaydi ayaa dhexda hayay waxa kale ciyaartooyda kamid ahaa Ceelaabi wasiirka ahaan jiray wasiirka dowladda federaalka
wasiirka khaarijiga mar wada ma qeyn goliyeen kale xuseen cilaabe xuseen cilaabe waxaa ka mid ahaa faarax gaal boorteeriga ahaan jiray marka duwan xiriirka tiim noocaasi ahaayeen adigu jenya badisay laakiin gudoomiyihii kooxda jenya jaamac gani koobkii wuxuu siiyey kooxdii la wuxuu yidhi annagaa idinka dhibca badan laakiin yani maadaama aad ahaanateen kalsoonida shacbweynaha yani waxaan u habeynayna kooxda hillaac marka nimanka raacdoodka ah ay ahaayeen iyaguna aad iyo aad maxamed kolley rashiid baan marka hore hadda raba inuu su-aal ku weydiiyo kadibna aniga ayaa su-aal kale ku weydiin doona waxoo dhanna waxay ku dhan yihiin soomaha taariikhda buugga kubadda cagta okay waa lixdankii sana ugu dambeeyey 1938 ilaa iyo hadda horyaalada ku sameeyay kubadda intaasaan oranayay 3 sano ugu dambeeyay maartay taariikhda kubadda cagta ee Soomaaliyeed maxamed shaqado waxaan rabaa barnaamijka inaan noo soo xigtay barnaamijka isniinta ayaa qaybta kale aan geli doonaa oo sheekada noo socon doonta marka hadda waxaan rabaa noo soo xigtay daqiiqadaha kale aan dadkaan barnaamijka la u sameeyno kadibna barnaamijka isniinta waxaan ciyaaraha ku soo xirayaa ciyaartii 1986 All African Games koobkii lagu qabtay Muqdisho waa marka kaliya ee kubadda cagta iyo kooxdii gabdhaheena xulka qaranka kubadda kolayga ay Masar finaalihii ay ka adkaadeen waxaan sheegayaa kubadda kolayga cafan kubadda kolayga wiilal iyo gabdhaba aan ku adkaanay oo Masar aan ka adkaanay oo dahabkana aan ka qaaday baaskitka halkaas la oran karaa taasa ugu yani ugu gabdhaha ayaa ka guulal badnaa wiilasha marka dibadaha la soo aado international competitionska booska afraadka saddexaad soo geli jiray gabdhuhu laakiin ciyaartaas waa ciyaartii maaragtay yani koobkii ku qaaday gabdhaha Muqdisho lagu qaaday 1986 gabdhaha waa maasantahay waxaan barnaamijka isniinta sii wadi doonaa ciyaarahan aad interessant u yihiin waan ka wareysan doonaa maxay gabdhihii Soomaaliyeed ciyaaraha ku firfircoonaa waagi hore ee dib u dhac u dhaceen ciyaaraha samarka la qabanqaabiyo wiilasha kale loo qabanqaabiyo gabdhaha wax loo sameeyo mal ma ogaani kana seetay marka ku sii daqiiqad u dambaysa waqti waa 2 daqiiqo buugta waxaa laga heli karaa maaragtay waxa dadkii weydiiyeen marka libaax sidii caadiga waa website-ka www.scountsman.com telefoonku waa eber 7 eber 747 Bashiir ayaa yani laga dalban karaa libaaxna meeshiisana waa aan geynana halkaas dhalinyarada ciyaartooyda ay codsadeen gabdhihii halkan waxaa jooga group baa jooga ani waxaan ka garanayaa astur jaamaca uumiya joogtaa dhowr kaloo waxaa jooga qaranka jira halkan bay ku qoreen magacyada kuranta kama xusdina buu ka baaramayay marka in gabdhaha laftigooda basketka iyo wiilasha la hormariyo oo halkan aynu hormarino laga marmaan alright marka barnaamijka isniinta ayo gacmo dheer nala joogaan Cabdiqaadir Salo waxaan rabaa inaan in sheekay information ku saabsan arinta qaxootidoonka Soomaaliyeed saan warbixinta u bixinay waagi hore wax isbedel ma jiro hay'adda socdaalka go'aanka gaartay waxa weeye dadka Soomaaliya ka yimaado waagi hore automatically 100% sharciga wala siin jiray haatan waxa leeyahay dadka Soomaalida oo dhibaataysan oo ka yimid qabaa'ilka yaryarka minority-ga oo cadaadis iyo dawgal ugu hayo kaliya ayaa sharciga la siinayo qofkii siyaasad sheegto dhibaato siyaasadeed oo wadankii Soomaaliya u soo cararay laakiin dadka kale u soo cararay dhaqaaleed ha noqdo ama beelaha waaweyn ka dhashay Soomaaliya hay'adda socdaalka waxay bilowday in qaarkood sharciga u diido laakiin 80% Soomaalida sharciga waa la siiyaa ayagii Ciraaqinta waa la siiyaa intaas oo inta information kan ka hayno hadda salwaan ku leeyahay barnaamijka soo isniinta maxaa noo soo diyaariyay isniinta kulli maxamed sheekh xasan ayaa noo sii wadi doona taariikhahan buugagta iyo maaragtay aan ka wareysan doonaa farqiga u dhaxeeyo nolosha wadankaas Canada iyo wadankan aan ku noolahay Sweden marka halka waa ka salaameynaa dadweynaha oo dhan barnaamijka maanta Rashiid iyo kulli gacmo dheere iyo aniga ka qayb qaadanay waa mahadsantiin okay asanta gacmo maxamed sheekh xasan gacmo aad ma santahay waa noo isniinta magalta barnaamijka isniinta hadda aad qoslay ayaa cajalada qaybta u dambeysay heeskii noo diyaar gareeyay nala daawada waa email soo dira hadda u baahantiina buugtana aniga ila soo xiriira waana in gudbinaa meesha libaxuna waa laga helaa library-ga oo meel kasta oo way laga helaa hadda u baahantahay ay weydiisatida biblioteca way ku dalbayaan buugtan oo maxamed sheekh gacmo dheer qoro marka tag library-ga ka dalbo buugta hadda u baahantay inaad akhrisatid ama waxa ka heli kartaa meesha libaaxi labada buugaag oo sportiga waa tahay thank you very much ma sida